الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جوار حسين halkaad nagala socotaan waa channelkeena Jawahar Xuseen inoo maamusha waxaan rajaynayaa in caafimaad qabtaan sida aniga ba anoo caafimaad qabo. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka inoo ziyaadiyo. Allah subhanahu wa ta'ala inta xanuunsan xanuunka ha ka dulqaado caafimaadka ugu bedelo dambi dhaafna ha ugu dhigo. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan jecelnahay firdaws al-a'la ugu horeysa hanagu arsaaqo. Allah subhanahu wa ta'ala dalkeena ha inoo hagaajiyo. Allah subhanahu wa ta'ala intaan guur haysan guur wanaagsan ha ku arsaaqo, intaan ubad haysan ubad baari ha ku arsaaqo. Allah subhanahu wa ta'ala inta ubadkooda ka maqan ha u soo celiyo, inta sharciyada ka maqan ha u saqiro. Allah subhanahu wa ta'ala qof walba amoodiisa imraadkiisa ha u sahlo oo macsi lahayn aniga ka mid ka ahay. Allahumma aamin, Allahumma aamin. Allah subhanahu wa ta'ala intaan shaqo haysan shaqo wanaagsan ha siiyo. Allahumma aamin, Allahumma aamin. shalay fiidiyoo la ii soo diray ومعقول وإلى نقوم وإذا سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى لبكان دعاية هرت برها نجا مريو runtii adduunkiiba wada ognahay waxa ka dhacay sicir barra ka dhacay waxyaabo badan isbedeleen dalkeena ay kamid tahay anaga horta dhibkan heesta Soomaaliya hadaan nahay wax ma soo saaranaba adduunkan kala cala aqal galiyay soo saartaan galiyadoodu way cunaan waa bur way sameystaan sokortooda way sameystaan saliidooda way sameystaan waxyaabo badan ay sameystaan anaga ilaahay subhanahu wa ta'ala hanoo saqiro alxamdulillah ina galay beerano moosna ahaysano intaas ilaahay nagu badbaadiyaa rajayna biidnillah oo sidaan adduunkan wax iska bedelo marka shalay video la ii soo diray wallahi waa ka argagaxay waxa igu soo dhacday arinani igu dhacday taban wax walba ma aqaano meel walba marka arko wax ani ugu dhacba ku soo xasuusta marka aada ugu xumahay waxa jirto magaalo la dhaho Mansoura Soomaaliya gobol waayo oo Masar kamid ah Soomaali jaamacad ku dhigato waliba qof aqaana kamid aha ma aqaan hadda in la soo wareejiyo qaar loo soo wareejiyay in kala ma sheegi karo فمنصورة shalay waxa ka dhacay shalay laba falal oo kala duwan Masar ka dhacay iyo Soomaalida Masar joogta ama soo socota arina u jeedinaa insha Allah labadaas falal oo ka dhacay Masar runtii labadaba waxay ahaayeen mid aad u xun gabar yaro hadda saddexaad jaamacada sanadkii saddexaad jaamacada ay wado oo Mansoura degan oo jaamacada Mansoura ay ka dhigato magaceeda Niira laha marka Allah musta'aan gabadhii waxa jiray wiil oo soo doontay inkastoo dadka qaarna ay dhahayeen mustawigeeda ma ahan wadankan waxa jiro dadka isguursanay mustawi isku guursadaan Masar sida Sacuudiya wax dadkan oo kale ma ahan mustawi isku guursadaan mustawaha maxaa waaye mustawa waxa waaye مثلا kan dhulka xaqay gabadhiis kan dhulka mid dhulka xaqay oo guursanay kan guriga waardiyaha ka gabadhiisa mid guri waardiye ka ah guursanay diktoorka gabadhiisa diktoor kale ama wax asi camal ama diktoor ha ahaado ama meeshu asi taagan yahay qof joogo ma ahan qabiil hadda meeshu rabo ha ka soo jeedo laakiin meeshu asi taagan yahay qof taagan wiilkiisa ama gabadhiisa oo u raadina mustawi isku guursada mustawina ma aqaan af Soomaali wuxuu lagu dhaho mustawi waxa waaye dadka oo isla soo eg yani waxa kayga ma ahan level Soomaalida saasay dhahaan oo level kayga level isku guursadaan rajul a'maal ama businessman gabadhiisa ama wiilkiisa waxa guursanay sidoo kale asan businessman kale oo jecel la wadaaga ama wixii dhan waxa waaye wax isla eg ay isku guursadaan inkastoo hadda xoogaa iska bedelooyin oo sidii hore aysan ahayn oo jecel iyo waxaas ay barteen marka waxa dhacday in gabadhii oo wiilkii dhowr mar uu doontay ayadana ay diiday kaliya waalidkeeda ma diidin ayadana way diiday dadka qaar waxay leeyihiin mustawigooda ma ahayn yani isku level ma ahayn uu ka level hooseeyay يعني isku dhaqaale ma ahan dadka markay dhaqaalaha wax yar kor ay u qaasan yihiin asi loo waay uu dhaqaalihiisa hoos waay marka ma guursan karo qof ayadoo asigoo kale inuu raadsado waay dadna waxay leeyihiin akhlaaqdiisa maysan qancin waalidkeeda say ayaga sheegeen mustawigiisa ma ahaane dad ayaga kamid ah la sheegeen oo wareysiga taban oo qofka Carabiga yaqaano meel walba uu ku jira keliya sheegeen eedadeeda adeerkeeda naagta qaba dhahday mustawigeena ma ahan laakiin maxay raadaasi eedadeeda aabaheeda
aabaheeda la dhalatay iyo adeerkeeda wuxuu leeyahay akhlaaqdiisa maysan qancinin, akhlaaqdiisa ma wanaagsaneen. fa subxaan allah marka waa wuxuu ka dalbaday dhowr mar oo xiriirka iyo doonashadii iyo way diiday inuu qatuubto oo loo diyaariyo oo guur iyo waxaas loogu diyaariyo. way diiday, waxay dhahday maya kuma rabi. markaas wuu ciil cunay. horta ajaanibkan waxaa ku nacay nin ajaanib, horta waxaa ku nacay anaga waxaa ku roonahay cala aqal wiilasheena 9 naagay shukaansadaan, sidaas darteeda waxay jecel yihiin ma yaqaanin. saasaa roona iga tag inta qofka naftaada uu kusoo jeesan lahaa haska shukaansadee. marka dadka ma yaqaanin, hal qof la jeclaana nafta loo dhiiba qalaas qoftiile la haysana, wayna adag tahay qoftaas in ka baxdo maxay radaa gudihii ama maskaxdii ay ka baxdo, way adag tahay. fa wiilkii sidii ku dhacday gabadhii jacayl oo u qaaday. markaas uu ciil cunay, wuxuu dhahay maadaama aniga ay dhaaftay qof kale ma calfanayso. taasoo kale way ugu dhacday in qof Suudaan had ka hor afka la galay, taas igu dhacday oo intaasoo maxay radaa maalin baangad la igu raadsanay. alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'ala iga badbaadiyay. falxamdulillah alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'ala hana amaansado. ajaanibku way xun yihiin, Soomaaliya iska ilaaliya. marka gabadhii shalay jaamacadda markay ka soo baxday, wallahi video wali isoo diray subxaanallah waa argagaxay. markay jaamacadda ka soo baxday wadada dhexdeeda uu ku qalay, inkastoo isla markiiba la qabtay oo dadka meesha joogay ay qabteen, laano ma ka soo gaarin dadku. wuu qabtay isla markiiba wuu qalay. mac salaamo. subxaanallah markaas waa la qabtay oo waa la garaacay, waa la iskugu tagay. maxay taraysaa marba gabadhii hadday nafta ka baxday. فسبحان الله إلهي سبحانه وتعالى ونحرسته إلهي جنة الفردوس هكا ورابيو. إلهي سبحانه وتعالى طبعا واسك قبر لواتيني 6 جر 36 جر واي وآد أقرح بدن يدرنتي سبحان الله وحسبب ونقضي إن نفتي هذا ودافيو واي وان ربي أف صومالي هذا ما نقضي وان ربي وان جعل هذا جعل قفك جعشها هاي عربدي يرحتا إني مدو ما أقورت الجانب كما أقانا ضعف الإيمان هايستا أمالينا إلهي حقها تصو طبعا وقتنا هاي قبل الود لي كي ماليزيا صوماليدا ahayd ajaanibku way xun yihiin ajaanibka iskaga fogaada ma wanaagsan wallahi ma wanaagsan maskaxday ku gashanay hadaa diididna nafti inay ku dhaafiyaan ka doorbidaan in qof kale alla ceeshtid ama alla noolaatid waxa kale oo dhacday burjiga oo qaahiro ku yaalo oo dheer waxa iska soo tuuray wiil iska soo tuuray markaas wuxuu yiri aabahayga ha arko aabahayga arko ma aqaan aabihiis ma wax ka haleeyay weli akhbaarta si fiican looguma soo sheegin aabahayga ha arko dhahay waxaan sameeyay yuusan xanaaqin marka aada ugu xumahay in waxyaabahaas oo dhan ay dhaceen shalay gudaheeda fasaasay tahay dadkan dawladooda way adag tahay talaaba laga qaadaa umadaana waxa sida Soomaalida kale ay u dhaqmaan waliba ma sha Allah madaxweynaha hadda haysto waa madaxweyne aad u adag oo ma sha Allah oo amaanka iyo wax walba sugay maca dalika dad madaxooda adag maxaa laga qaban karaa marka ilaahay xaqaha soo hanuuniyo marka wadankana sicir barar ka jira Soomaaliya idinkana is ilaaliya masaarada iska ilaaliya oo maxaa iraahdaa dadka kale ajaanibka kale wadanka ku nool iska ilaaliya qof walba wuxuu leeyahay Soomaalida dollar ay haystaan Soomaalida lacag ay haysataan dollarka ma anaga tacabano maana makiinada dollarka noo taalo iska ilaaliya lacagtiina dadka ajaanibka idinka ka ilaalsada lacagtiina dadkaadan isku jinsiyad xataa kuwa isku jinsiyad yihiin inta ka ilaalsan kartiin ka ilaalsada kuwaadan isku jinsiyad ahayn iska fogeeyo inta iska fogeyn kartaan marka adduunka sicir barar ka dhacay adduunkii waxba lama goyn karo marka ilaahay amuraha saqiro marka inta is ilaalin kartiin halas ilaaliyo inta oo qof walba wixiisa u dhuuqsan kara ha dhuuqsado waxaan sheegaa dadka wadanka ku noolahay xaaliyan igula nool marka Allah musta'an wixiina banaanka soo dhigana masaaridana iyo ajaanibkan kalena lacag isku barina am fahmaysiin is ilaaliya inta is ilaalinaysiin wixiina iska dhadhoorta wixiina iska dhadhoor waxa dad siinaysiin dad walaalihiin oo baahana wadankan ku nool dad walaalihiin oo baahana wadankii joogo dad walaalihiin oo baahana adduunka
dacladiisa ku kala nool marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qurbaha noo xafido madalkeena qurba ma qurbahana qurba waa su'aal isweydiin mudan dadka Soomaaliya ka imaaday 9 saac habeenimo markay wax soo gadanayaan banaanka u soo baxayaan oo waliba ayagoo dumar ah waxay leeyihiin ma sha Allah amaanka fiicana amaanka wuu fiican yahay maca dalika qurbo way wadanka anaga ma lihin kaanina amaan kuma haysano ku islaameedna amaan kuma haysano dherigii dhaxda ku gubtaa noqonay Soomaali hadaan nahay ilaahay hana xafidasa ilaahay subxaanahu wa tacaala dad wataan ilaahay subxaanahu wa tacaala doomihiisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hana xafido walaashin Jawaar Xuseen oo idin la kusoo dhawaada channelkeena subscribe saara asxaabtiin la wadaaga wixii ra'yigiina commentiga ugu reeba like tan dhirgelina tahay like saara خير يا عفمتي بروقة إذا رجعنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.